ciyaarahana sanadkan runtii waxaa ka soo qayb galay 16 kooxood oo kubadda cagta ah oo ka kala yimid gobolada kala gedisan ee waddanka Netherland iyo koox ka timid ee waddanka Belgiumka gaar ahaan magaalada Antwerpen sidoo druk op de aanval. Weg van je eigen helft, meer daarop. Want je hebt maar 20 minuten om een goal te maken. Dus zorg constant dat je een aansluiting hebt. إن شاء الله مرحبا ودال كم 1 2 3 daro maanta waxaan rabnay ciyaar fiican oo banaan dhignay laakiin ciyaar tan ka horeysay jansigeena wax badan ku xirnaa laakiin waxaan 10 ku qaadanay magacaygu waa Cabdullaahi Salaad Xasan. Cabdullaahi kooxdeed wadataadu waxaan wata koox ka socota magaalada Qawda. magaalada Qawda ciyaarahan waad ka soo qayb gashay bal ilaa imika natiijadiina inta laga badiyay ciyaaraha laga badiyay iyo ciyaaruhu sidoo arkaysa niyo ciyaaraha waxay ku bilowdeen waji adag kulay sanadka dambe way sii adkaadaan sanadka horena waa ka qayb galnay laakiin sanadkan sida aan maleysanaynay ma aysan u dhicin oo groupkan ku soo harnay inkastoo sanadka hore aan ku soo harnay semifinalka oo kooxdii semifinalka noogu badisay ay qaaday marka sanadkan waxaan leenahay waa nasiibka naga heliyay maxamed banooni markay leeyihiin okay banooni markaan leenahay risqi waa socon karaa risqi adiga waxaan dhaxda soo gal okay wixii corona dhacay alxamdulillah wallahi rigoor oo 13 rigoor lisla gaaray waxa waa ciyaarta waa sidii ilaahay u talagalay ku dhacdo waxa waaye anagana waa jeclan sanadka hore inaad difaacano koobka sanadka hore qaadnay waanu noqoyay sanadkan magacaygu waa Axmed Abuukar Cumar oo ka imaaday Beverwijk magaalada Beverwijk deganahay maanta waa maalintii ugu horeysay aan ka soo qayb galo Freiwillig ahaan markii ugu horeysay aan imaado waa ka shaqeynay shaqadii alxamdulillah si fiican aan ku dhameynay toernooi is heel goed gegaan 16 teams hebben vanochtend zich gemeld om deel te nemen aan Herda Summer Cup 2015 we hebben net de halve finale gespeeld en ja, het ging heel goed. Teams waren positief, sportief en mooie professionele wedstrijden waren gespeeld. En zoals je ziet, ongeveer tussen de 250 tot 300 man waren vandaag hier aanwezig in het Belmont Sportpark. Heb jij een prettige wedstrijd? Ja. magacaygu waa Cabdifataax Axmed Cabdifataax Afgooye waxaan ahay macalinka Rotterdam maanta waxaan joognaa toornooyigii Herda Amsterdam samarka weli waxaan ku dhex jirnaa ciyaarihii group stage-ka waxaan ciyaarnaa kulankeena saddexaad
kulan waxaan galnay barbardhaca kulan waa badinay haddana ciyaarta weli way socotaa natiijadana weli ma hayno waa eber waxaan rajaynaynaa inaan ciyaar wanaag iyo natiijo fiican meeshaan kala laabano. والله wax lagu farxo waaye dhalinyaro Soomaaliyeed oo la isku keenay hirdana qayb weyn ay ka qaadatay yani maamulkan waa fiican yahay ma sha Allah. madnaaji ciyaaraha iyo guud ahaanba dhalinyarada Soomaalida mustaqbalkayga saad u aragtaa wallahi wax wanaagsan ba meesha iga muuqda dhalinyaradii fara badan oo halkan ku tartamayo oo hay'adan aad isku dubariday waa waxa loo baahnaa dhalinyarada wacyigelin bay u tahay iyo isdhexgal dhalinyarada isdhexgalka bulshada ayaa qayb weyn ka qaadanayaan hirda yani hay'adan aad baan ugu mabsuuday habka ay u wadaan iyo habkay isku dubarideen dhalinyaradan oo maanta isku timid halkan runtii ujeedada ugu weyn ee ciyaaraha loo qabanqaabiyey saad ogtahay baa laba goor baa sanadkii ciyaaraha aan qabanqaabinaa mid xagaaga ah oo xilligana iyo midka qaboobaha ah oo asagana dhaca December labada xilli waa laba xilli oo aan ugu doornay in dhalinyaradu ay isdhex galaan isbartaan isla markaana ay dareemaan Soomaalinimada sababtoo ah saad ogtahay waddanka kan dadku way kala firdhisan yihiin tuulooyin bay kala degan yihiin way adag tahay say isu dhex galaan waxaad u badato waxaa dhici karta in maxaan ku rahdaa tuuladaas ay degan tahay 10 qoys qaarkood waxaa laga yaabaa in 2 qoys kaliya degan tahay marka fursadaha ka jira wadamada Ingiriiska oo kale iyo Mareykanka oo kale oo Soomaalidu xaafad ama magaalo yar ay kuwada kulmisan tahay ma jirto halkan waxa weeyaan dadka waa la kala firdhiyaa tuulooyinkay degan yihiin magaalooyinkay degan yihiin marka waa fursad kaliya aad arkay Soomaaliyeed maantayto waxa soo dhalinyaro oo ka kala yimid waddanka daafiisa kala duwan inay kulmaan isbartaan isla socdaan marka runtii waa waxaan aanu ku taameynay in la gaaro mustaqbalka soo socdana waxaan rajaynaynaa in ay aad uga fakaraan Soomaaliya wixii ay ka geysan karaan gacan hadday waqtigu suurtageliyo kooxaha qayb ka mid ah in maxaan ku radaa ay tartamo u tagaan Soomaaliya hadday suurtagal noqoto nabadgelyada xaggeeda taana waa rajaynaynaa insha Allah ka soconnaa wadanaa kooxda loo yaqaano Iswola oo ku ciyaaraysa magaca Iswola waxaan ka soo qayb galnay ciyaarihii hirda ee sanadkan 2015 lagu qabtay magaalada Amsterdam magacaygu Micaad Maxamed Ciise waxaan ka tirsanahay naadiga Tilburg waxaanu ahay sharaf inaan ka soo qayb galno hirda barnaamijkan ay qaban qaabisay waxaan aad baan mataqaanaa ugu faraxsanahay ka soo qaybgalkayga sanadka runtii hirda hawsha ay qabatay oo halkan aan ku arkay horena aan u maqli jiray waa hawl aad iyo aad u wanaagsan dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah oo qaarna football ku tartamayaan qaarna ku tartamayaan orod qaar badanna ay daawanayaan ama dhiirigelinayaan ama ay tababarayaan halkan maaragtay sidii Soomaaliya kale iyadoo la joogo dhalinyarada Soomaaliyeed ay u damaashaadayso ay u ciyaarayso ay u tartamayso wax aad iyo aad u wanaagsan way runtii waan ku farxay waana ku dhiirigelinayaa inay hawshaasi wadaan darka cagaarka wata waa Newcastle darka kale qolada watana waa Spider جانس وقاعدين صفر دب لهن يلا حناقه مهمته waxa waa illa deganaado muhiimada taas ah laakiin hadii la xanaaqo ma qaduma abu ash belief
I'm the champ. faraxsanahay koobkan aan qaadnay waxaan koobkan ku qaadnay si wada jir ah qalbi furnaan kalsooni banooni nadiif ah ragga meel iskugu imaadaan sideedaba gari laba nimanka ma quusiso guusha mid bay qaadaysaa aad aan ugu faraxsanahay ciyaarta maantana aad aan ugu faraxsanahay koobka kooxda qaaday samarkana markasta waan ka soo qayb galay anoo ah ciyaarihii dadkii hore hambali ayaan leeyahay dadkii qaaday koobka iyo dadkii hawshan noo qabtay siiba hirda